bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibayaal muuqaal kale cusub ayaan idin haynaa. xasan sheekh maxamuud oo ku faanay ciidamadii uu dhisay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. sidoo kale wuxuu ilaabay xasan sheekh maxamuud in ciidamadaasi waalidiinteedu uu ka ilmeysiiyey maadaama uu sheegay in ciidamadaasi la iibsaday. qodobyadaas iyo kuwo kale ayaad daawan doontaa. haddii aad kanaalka cusub tahay fadlan subscribe saar oo muuqaalka like garee. ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka baybuug ee ku yaala isgoyska beelaha sheekh ibraahim dhinaca wadada aada dayniile inuu idin hayo adeeg caafimaad oo dhammaystiran. isbitaalku adeegsanaya qalab casri ah wuxuu idinka daaweynayaa cudurrada guud sida aan ku bilaabe. maalmihii lasoo dhaafay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku maqnaa safar dibadda ah gaar ahaan dalka Mareykanka. xasan sheekh maxamuud oo laga wacay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, sidoo kalena wuxuu warbixiyey ciidamadii Eritrea jira. sidoo kale wuxuu sheegay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo aan marnaba la heli karin loona soo tababaray si adag, maadaama isaga markii hore ciidamadaasi oo si weyn ugu gafay maadaama uu sheegay in la iibsaday isagoo markaasi mucaarad ku ahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo askartii ugu badneed u diray dalka dibadiisa. inta badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu dhaleeceyn jiray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. taasi beddelkeedii ciidamadii maanta uu dhisay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waa uu ku faanayaa ilaa iyo dalka Mareykanka. meel kastoo uu tagayna ciidamadaasi ayuu ku faanayaa, iyadoo labada ogyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ka ilmeysiiyey hooyooyin fara badan kuwaasi oo gaaraya 500 oo hooyooyin iyo in ka badan, uuna sheegay in ciidamadaasi la iibsaday. sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku eedeeyey in lacag fara badan uu ku qaatay. in badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed way aaminsanaayeen in ciidamadaasi la iibsanin ay ahaayeen ciidamo qaranka u maqan loona soo tababarayo, taasina aysan marnaba ka suurtoonin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in ciidamadaasi uu iibsaday. Fahad Yaasiin oo dhowaan wareysi bixiyay wuxuu sheegay in ciidamadaasi markay imaadaan dalka dad badan oo ka mid ah ama mas'uuliyiin fara badan oo dowladda haatan xil ka haya in ay ceeb iyo fadeexo la kulmi doonaan, maadaama ciidamadaasi ay ahaayeen ciidamadii abid ugu badnaa ee dalka dibadiisa loo diro lana soo siiyo tababarka ugu adkaa. ma jirin sida hadda loo tababaray ciidamadan ciidamo ka horeeyay ee dalka loo tababaray kasoo bilaabo dowladii Sheekh Shariif uu hogaaminayay ilaa ay maantadan la joogo. ma jirta ayaa la leeyahay ilaa ay ciidamada Eritrea loo diray mooyaane. sidoo kale xasan sheekh maxamuud markuu ciidamada isaga ishiisa uu soo saaray isaga qudhiisa ayaa yaabay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowr mar isku dayay in uu raaligelin ka bixiyo maadaama ciidamada Soomaaliyeed la soo tababaray uu gafay. sidoo kale madaxweynihii hore madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo qudhiisa uu ajaafo balaaran u geystay. taasi beddelkeeda ceeb ay la noqotay. dhowr mar ayuu odayaal u diray si uu heshiis ula galo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. inkastoo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay markii qorisku dhiibka la sameynayay caleemisaarka khudbadaha uu jeediyey inuu la shaqeyn doono haddii jeer madaxweyne xasan sheekh maxamuud, maadaama lagu ogyahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu isagu yahay mid aad u qiimeeyo patriotism-ka uuna kasoo horjeeda qabyaalada ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ahaa in nidaamka dowladda lagu dhisi karo ciidan haddii aanan ciidan la heedin aan waxba dhisi karin. nidaamkan oo ahaa nidaam aad u wanaagsan oo dad badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay la qabsadeen nidaamkan haddana waxaa jirtay cudurro fara badan oo ku dhex jirtay dowladda uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. inta badan ay ugu horjeedeen arrimaha geedi isku socodka nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhowr mar ayaa isku dayay in mooshin laga gudbiyo, laakiin inta badan waxaa taageersanaa shacabka Soomaaliyeed. haddii taasi ay sameyn lahaayeen mucaaradka, xitaa mucaaradku waxay isku dayeen inay sameeyaan banaanbaxyo oo afgembi ah. taasi way suurtoobi weysay. inta badan nidaamka xasan sheekh maxamuud lagu dhaliilo waxaa ka mid ah in inta badan markii uu tago caalamka ay uu nidaam qaldan uu wax weydiisto.
taasi beddelkeeda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu aad u jeclaa patriotism-ka. Haddii inta badan ciidamada Eritrea jira ay Soomaaliya yimaadaan, waxay garab u noqon doonaan kuwa dalka jooga. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud taasi ma uusan ka fikirin markii hore. taasi beddelkeeda ciidamada ayuu ajaaf u geystay. Sidoo kale wuxuu ku tilmaamay alaab meel taalo oo la gadan karo maadaama ay naf nool leeyihiin. Sidoo kale xitaa wuxuu waalidiinta caloosha ugu jilciyay in ciidamadaasi ay ku jireen dagaalkii ka dhacay dalka Itoobiya, dagaalkaasi oo u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Tigreega. dagaalkaasi halkaasi ka dhacay, wakaaladaha wararka waxay qoreen reer galbeedka in dagaalkaasi ay ku jireen ciidamo Soomaali ah, taasi oo la aaminsan yahay fariin loo soo dhiibay inay ahayd ay uga soo horjeedeen maamulka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. inta badan Soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu u dhihi jiray waxa ku jiro dano shisheeye. danaha shisheeyaha oo aan lagu zuulinin weer ma jiro ilaa ay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay codowsadaan dadka wadamada reer galbeedka. sidoo kalena wadamada shisheeye intooda badan waliba kuwa reer galbeedka ay u nacbadanaayeen maamulka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. taasi beddelkeedu waxay isu adeegsan jireen mucaaradka, waxay soo siin jireen lacag, waxayna isku dayeen in ay dhowr mar dibadbaxyo rabshado wata ay sameeyaan. taasi waxaa ka hortagay ciidamada halganka badan oo soo galay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. siyaasad xumada iyo nidaam xumada ee sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah markii la tago wadan shisheeye ama dowladaha shisheeye, kadibna meel lagu casuumo, isla markii wuxuu soo bandhigaa baahiyaha gaarka ah ee dalka Soomaaliya uu qabo, taasi oo dhali karta dowladaha shisheeye inay ka soo weeraraan Soomaaliya, sidoo kalena ay u soo maraan marxaladaha dalka uu ku jiro awgiisa. maadaama Soomaaliya uu yahay wadan aad ugu hooseeya xagga dhaqaalaha, inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay danayaan dhaqaalaha. haddii dhaqaalaha la siiyana micnaha wax walbo ama arin walbo oo dowlada shisheeye ay leeyihiin halkan ayaa loogu fuliyaa. tusaale waxaan soo qaadanaynaa dowladda isku taga Imaaraadka Carabta. waagi uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dalkan ma aysan ka shaqayn jireen safaaradahooda iyo hay-adahooda kala duwan ee dalka Imaaraadka. markii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo arkay ciidamo Imaaraad la yiraahdo in ay dalka joogaan, isla markii wuxuu isku dayay in dowladda Imaaraadka uu safaaradeeda ka raro magaalada Muqdisho gabi ahaanba Soomaaliya. inta badan dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya way aaminsanaayeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku dhaqaaqay 100% inay sax ahaayeen, maadaama dowladda Imaaraadka Carabta isku dayday inay sameysato ciidamo u gaar ah in u joogaan Soomaaliya markii ay rabaan arrimo Soomaaliya ay ugu fushan karaan. inta badan dhaqaalaha xumada heysata Soomaaliya waxaa ka faa'iideystay dowladda shisheeye. taasi beddelkeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu aad u jecel yahay in ciidamadiisa, dhaqaalahiisa iyo meel walbo dalka dowladda isaga uu maamulaha u yahay in uu banaanka geeyo lana ogaado. taasi oo ah waxyaabo aad loogu xumaado, inta badanna aanan fiicnayn, sababtoo ah ma jirto dowlad kale arrimaheeda u sheegata maadaama dowladnimada aan la isku jecleen. waxaa joogtaa bariga Afrika, waxaa leedahay codow far badan, marnaba macquul ma ahan in nidaam xumada ku haysato iyo meesha ka liidato inaad dadku u sheegto. inta aan muuqaal noocaan ah ku kulmeyno, sidaas nabadgelyo saaxiibayaal.